naxadinta aabaha uu naxayay ilmaha yar maxay loo ka naxay waxba ka raacaya intaas hooyooyinka hor diidi jireen oo jireen anaga soo sasabi odayga ani horta ii sheeg si aan saydan isku bixinin marka aabo iyo hooyo iyo ubad go'aan nololeed isla qaatay hadda go'aan nolosha sideebeen ugu noolaana maxaynu sameeyna hadba taagteen iyo tamarteenu inta ay tahay ilaahayna nabigeena muxuu ku amaanay sallam muxuu ku amaanay wama ana min almutakallifin wama ana sheekh weyn ba masar nacasumi jiro wax noo dhigi jiray magac weyn anagoo yar oo azhar dhigano cimaamad yarada casad xiran ayaan guriga ugu tagi jirnay markaan u tagno ayaa maxay toolay roodhi yar iyo fuul yaro qaboobayo bari hore halkan la dhigay iyo koob yaro shaaho bigaysu dookeen arday baa anaguna bogaano dhulka ku haynaayo waxaan isleenahay maanta sheekhi baad u tagtay waad ka soo faraqabsanaysaa inta yar baan u sheegnaayo markaasuna dawada weyna waa dareemaya markaas wuxuu aayadaas nagu akhrin jiray ilaahay nabiga wuxuu ku yiri sallallahu alayhi wasallam wama ana min almutakallifin taagiya tamar waxaanan haynin ha iska yeelyeelin ha iska lifin ha waxadiiskii xasuuso faqiir isla weyn saddexda ilaahay aanu eegiso kuma jirto yawm alqiyaama samaha oday weyn oo zinaystay wal iyaadu billah madaxweyne beenaala iyo faqiir wax isku haysta waxba aan haysanin haddana loo taaglaayo or maxaad haysataa taadii u taaglay loo taaglaayo saddexda ilaahay ma laana waa saddex laga rabay dhaqanka ay la yimaadeen dhaqan ka duwan inay maxay toolay waay ilaahay subhanahu wa ta'ala kama dhamaanin mana ka dhamaanayo aayadku aan hayaan waa farabadayn ilaahay wuxuu yiri subhanahu wa ta'ala man kana yuridu hartha al-akhirati nazid lahu fi harthihi ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب وآياتين كبلوني معناه دي بين كحرناك ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة محيري من كان يريد حرث الآخرة قفك آخرة دون الدون كان السبب كتنجنا يا آخرة دي سكهلا نزد له في حرثه beertiisa uu abuurtay uu rabo saboolkeeda inuu aakhiro goosto waan u kobcinayaa bil Allah subhanahu wa man kana yuriidu harth ad-dunya qofka adduun doon aakhirana aan dan ka lahayn nu'tihi minha waxbaanu adduunka ka siini intii u qorneed risqigiisa uu ka qaadan wama lahu fil aakhirati min nasib aakhirana abaan nagu malaha adduunkana intii ku qorneed وكاسب الله سبحانه وتعالى فما أوتيت من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون الدونك قروح بدنا أبي النبي صلى الله عليه وسلم حوله قروح بدنا أبي حوله قروح بدنا أبي النبي هنتد وقروح بدنا قرنا كقروح بدنا تهيبير وحيكون قروح بدنا تهيبير هنتد النبي صلى الله عليه وسلم قف جبأة أو إيمان له أو آخر الدور ما خي جعنتي سكجرته دقال بو نبي دورة إنه بحث صلى الله عليه وسلم صحابة دي مساكين تهاي سبولك هاي ماشي أهل الصفوة لو رنجري إسكاب مساكين تها أي أيمت مساجد ساحت كها هنقرأنا بهذا النبي محمد ودقالك صلى الله عليه وسلم مركزين وحنا ذكوا قاضي ما هيو حب ما هيستان يجو زاد ما وطان رتي كوران ما هيستان وح الله لو حي هيستان بحيان ماله لكن هوستا maxay ka rabaan inay nabiga raacaan sallallahu alayhi wasallam oo ay ka qayb qaataan gurmadka iyo gulufka gaalka lagu qaaday rabaan laakiin hanti ay nabiguna wax allaala wax uu ku qaado ma hayo buu yiri ma ahmilukum alayhi waxaan idinku qaado ma hayo sawir dhacdadaas uu quraanku sawiray markaas uu sawirkii taariikhda u reebay ila yawm al-qiyamah tawallaw wa a'yunuhum tafiidu min ad-dam'i حزنا ألا يجدوا ما ينفقوا نبر كي جديين يجو اللي نكقل قليسه ورور أي لو وروريان وحي دين تقدر صدام إن أنا هين أوجد نبي محمد ما تعالى راعي كريم صلى الله عليه وسلم ساجد كودي بس كفلسطين يجو جرحمة يجو جوحية وحيمت عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أو أي صور على قافله ganacsaduha afka imika casriga waxa tiraadaan hebelo markab sonkorhi u timid ama markab daqiiqi u timid maraakibta waaweyn ku yarayna ladina aamanu bahwa weynka
markaasuu